dhegaystayaal waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mid a maansada oo gabay leh geeraar leh jiifta leh heesana leh waxaa ka mid a sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curunteeda looga dan leeyahay waxaa ka mid ah halxiraalaha iyo wixii soo raaca sidaasi la eg carruurta soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra usii kala baxda waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba quman ma curin karto sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka curiya ka hor inta aanan su-aashaa ka jawaabin si aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaan ah ay u xambaarin jireen sidiisana buraanburku waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixal lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade qaar ka mida lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga aan haddaba si degdega u tusaaleeyo taxaha buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da'wen yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay aan u horaysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku gelbisay ayaan badaney ayaa kuu ilaalo tegey ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga sidaan soo xusay in badan buu buraanburku wuxuu ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay una war haysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga dhigto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn iyada oo la garamaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jiibinayaan waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalla yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ka falay dabamar badana xaggee buu ka daacaya buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku curin jireen taasoo u badan heeso mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen waxaa ka mid a heesta ariga midda maqasha tan alool samayska midda badartumidda kuwa rarada iyo kabda samayska midda caanalulista midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale sidaa darteed heesaha carruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihii ay curiso taas sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og ma yeeraan mar uu yahay mar uu hadaaq barad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba
haddiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo, iyada ayaa goorna walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. raaxan mooyee iyada ayaan rafaadba u oggolayn. mar walba oo ay sidaad u heshaba hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga bedela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanaynoo uu markaa ku jiro canugu, lana ooyayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mid ah. marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhigiisu ciridkooda marar iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. tuducyada heesaha carruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesayo qudhiisa, duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaa ku sugan tahay. haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaado. intay kor u boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. markaas bay inta muraaqooto si kan iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. waxay ugu heestaa: markaan qaadaan qoslaayoo qalbigu ii faaraxaaye, quwiilow hayga qaadin. waxaa iyaduna jirtaa ducadaas tu lamid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebbe kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. waxay eebbe ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid ah inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taas oo inuu geeriyooday mooyee aan si kale lagu macnayn karin. arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebbe ka baryaysa ayay ugu heestaa: dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin, dhaab culus laguma saaro. mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay, ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya. iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa, dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa, iyada oo ugu heesaysa: ayaa dilay oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dilay oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo, waa inuu toddobaadka soo aadaniyey ku lamid ah hadduu eebba idmo. dhegaystayaal, jacaylka ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada Soomaaliyeed heesihii ay carruurteeda ku maaweelin jirtay waxaa ka buuxa qaar ay ugu ducayso, kuwo ay ugu saabiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo, nin geyiga ay cidahoodu degaan guddoonka ka rida, tiisana la wada raaco, nin deeqsi ah oo mudano iyo martiba lasoo wada tamariyo, nin garta loola yimaado laguna wada kalsoon yahay. waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay ciradu madaxiisa wada saabato, isla markaasna sida roobka iyo harooyinka loogu oombaxo, dadkuna wada mahdiyo. heesaha ducooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah: goble iyo gobobka yeyle, nugaal godan goodigeeda, guddoonka ka yeeriyowa, dartuu gabangaabsadowa, guntiga faraha gashowa, cirada gaashaysayowa, gaboobe gaatiyowa, dixdii gaaroodiyowa,
dig weyn oo buuxsantowa maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa markaas bay aad uga walwashaa dabadeedna caafimaad bay ugu ducaysaa cudur gaara oo haya ma ay taqaan loomana sheegin waxayse og tahay xalay oo idil inuu soo jeeday iyadana soo jeediyey xanuun awgiis markaas bay u eebabadidaa kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo canuga sidaas cudurka looga qaado intay hadda xubin u salaaxda ayay tidhaahdaa halkaad xalana waxoqaysay halkaad xalay ladis ka weyday laguu mari sacab malayko malaa'ig ha kuu salaaxdo markuu soo yaro roonaado ayaa haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qniyada halista ah ee abeesada waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koraba dadka ishiisa iyo dhowdiisa inuu eebba ka dhowro gaar ahaanna umusha oo habaalkeedu inaan laga kicin ay bulshadii waayadaasi rumaysnayd waxay tidhaahdaa abeesa lug kaama goyso aroos eli kaama raacdo umurifiid kuma habaarto markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax la kala badataa kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiiba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan gacal hareerihiisa tubanna abid aanu waayin waxay tidhaahdaa hawaayin wax siisa hooyo hawaayin wardheere aabe hawaayin walaalo dhowra hawaayin intii wax ku ah dhinaca kale hooyada soomaaliyeed markii canugeeda u heesayso way ku ammaantaa mar waxay ku sheegtaa inuu yahay wiil u taagan wax walba oo ay bulshadoodu jeceshahay wanaagna ay u taqaan waxay ku tilmaantaa dadka inuu ugu qurux badan yahay dariisyaduna ay isaga u soo daawasho tagaan sidii bilanay bacaraboo badan u guurtay buftiyo shaal wada hagoogan banaag loo daawayowa mar kale iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo deeqsinimo iyo dagaalyahanimo ayay isaga intay weydiiso waxay ku tidhaahdaa wariyaa xalay oo dhan markaad qaylinaysay ee qayladaada laga ladi waayey maxaa talow kugu wacnaa ma odayaasha reeraha ayaad ururinaysay oo arrin culus darteed baa geedka sirka ugu wacaysay mase geel colkii soo dhacay aad adigu ammaanduulihiisa ahayd ayaad raggii soo qaaday u qaybinaysayoo midba saamigiisa aad guddoonsiinaysay mase intaba ma ahee dagaal ba'an baad ku jirtayoo rag aad col tihiin ayaad warmaha ka aslaysay waxay tidhaahdaa qalombiyow qayla dheere markaad xalay qaylinaysay maqaafaad ururinaysay ma geel baad qaybinaysay ma qaylkaabaad qalaysood qaylinaysay u fiirso sida loogu ababinaayo ee loogu qurxinaayo dhaqanka dagaalka iyo xoolo kala qaadka markalena waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin waxay ku tilmaantaa nin qoyskooda iyo bulshada kaleba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalata lagu reereeyo ee mugdiga looga haysto burcadka shidaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo caanaha maalinta la geediyo inta la baraxo ay laabtu ku qabowsato iyada oo si weyn oon loogu qabo biyaha la helo iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dhab loo rabo waxay tidhaahdaa sidii bilanay bil dhalatoo beeshu aragtay sidii burcad loo basaasay sidii barax maalingeedii sidii biyo loo haraaday sidii boqor loo buseelay bilow loo baahanoowa bogayga qaboojiyowa mar kale sidii isaga oo af soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyadu wiilkeeda ula talisaa heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogashahay dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco haddaba
heesta soo socota ayay hooyo Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon fulay goobta ka carara isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa qiimeeya waxay tidhi haddaad gaadhood gabowdo haddaad geeleenna raacdo haddii guluf kuu yimaado fariid waa lala haraaye furuhu waa baydadaaye haddaad fiigto ha fogaane waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu beri ka maalin ka takooraan ma isku heli kartaa waa su-aal meesha ku jirta dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga oo inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba ilmo